kulankani oo soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah beelaha deegaanka dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan beesha Kuumada ayaa looga hadlayay aayaha deegaanada hoostaga dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kalena waxa ay tilmaameen in ay muhiim tahay in isbedel dhanka maamulka ah lagu sameeyo madaxda haatan haya dowlad goboleedkaasi Jubbaland kulankani ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xisbiga xiis Cabdulaahi Cilmooge iyo taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland Axmed Cabdulaahi Gaas waxa kale oo kamid ah dadkii ka soo qayb galay kulankaasi xildhibaano hore dhalinyaro waxgarad nabadoono haween iyagoo dhamaantood sheegay in muhiim tahay in isbedel lagu sameeyo maamulka haatan jira sidoo kalena waxay dhaliil dusha kaga tuureen madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaan leenahay mudanaha meeshaas ka taliyo walal wad dhamaysanaysa waqtigaada insha Allah waan kugu soo dhaweynay markii hore inta ka dambayso u ogolow dadka walaalahaaga ah oo kula soo tabantaabiyay hawsha kaliya ma aadan soo qabanin 10 wiil oo aabaha dhalayna ma aysan ku dhimanin wuxuu ku dhintayna dhammaan beesha Kuumada ayay wada ahaayeen waxaan leenahay dadka maxay hatay isaga ku sii tabantaabinhayo in qaladka uu qalad ku sii saxana qalad lagu ma sixi karo waqti baad lahayd waqtigaadana si nabadgelyo ku dhamayso dadka aad tal xiireysana deegaanku waa kula leeyihiin waa kuwii kula dhintay waa kuwii kula dakanoobay dhamaantaana waa u dakanaysanay anoo dumar ahaayo Muqdisho joogay ayaa biilkayga maxay hatay kaarar ku tuuri jiray si uu isagu guusha u gaar mana aan aqoonin magacaas ayun baan kugu dhimanaynay meesha waxay noqotay meel halin kaliya u taliyo Axmed baa u yar Axmed baa u weyn waxaan leeyahay oo codsanayaa mudane Axmed taas waa inta laga hadlay dadkii baa cabanaya dad badan baanu gacan qaad la galay laba jeer waan ku gacan qaaday aniga wax soo hadal qaaday hadda maanta in la iska soo tarxiiro ninku meeshu u dhasay waa qaracan wax la aqbali karayo raali lagu noqon karayo maaha arinta Ilaahay ha ka caafimaad siiyo waxaan kaloo ku soo gudbinayaa niman adeero ahay baa tahay dhalinyaro iga yar waalid baan ku ahay waa ku jecelahay waa waxaan dadka ula dagaalamayo xaaladaadu hadda caadi ma aha حتى ماشي دولتي لحق أن تشوفني واحد يوسيرتي إن أضمن مش أوتشوز أو نلقاق هي أيضا أو قرانين بعد كان طيب سكداك اسمعني قدوميها حسبي حيس عبد الله علموجي ودنكي سالكا سقط بدر كتشيديي أيات الماما إن أنت بدن ديجانا ده هاست قد دولة قبلات كشوبلان أيهين كوكلا حرن أو شعب ككنول أي سنسكو جود بكرين dhanka kalena waxa uu baaq u diray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa weeye xaqiiqada markaan idin sheego ma ay jirto waa nasiib daro yaani waad xishoonaysaa marka la yiraahdo maamul dhaqan laga tarxiilay in afgudud magaaladan u jooga waa nin ku dhashay Kismaayo ma jiro waxa weeye ma jiro maamul xildhibaan intuu xil ka qaado xiraah oo ka qaada awoodii oo soo tarxiila waa kii saddexaad Axmed Taajir ee ugu dambeeyay dalka waxa uu qoran dastuur maamulkana waxa uu qoran dastuur intuba waxay cadeynayaan in la xaq dhowro waxa inoo qoran xakameyn baa adduunka looga baahan yahay qofku hadii uu noqdo fircoon oo kale inuu yiraahdo kan hal la dilacsi kan hal la dilo waxa weeye dawladnimo ma aha taas Cabdisaaq ee warsame afar bari ka hor baa hadda Kismaayo lagu helay wariyaal badan baa laga soo tarxiilay qaar Nairobi aan ku arkay qaar halkan aan ku arkay waxa weeye hadda waxa xiran oo video-da ka dhageysta darad inuu saabir xiran yahay Cabdisaaq warsame yani maxaa loo xirayaa waa pressure yar oo wax aadan jeclayn baa ya muxuu ahaayay ayuu ku hadlay marka horey baa waxaas oo dhan looga hadlay waxaan doonaynaa in ay noqoto wax aan qof loo daba fadhiin maamulka Jubbaland sidii rag u sheegay wuu ka weyn yahay shakhsi madaxweynaha wuu ka weyn yahay maamulka weyn waxaan rabnaa marka inuu noqdo system baarlamaan madax banaan oo muxuu ahaay baarlamaankiisa xor u ah iyo wuxuu soo jeedinayo ummadda sharciyadu qabanayo golo wasiiro oo xor ah ciidanka oo wixiisa u madax banaan qaadiyaasha iyo muxuu ahaay qudaada muxuu ahaay maxkamadaha oo madax banaan oo muxuu ahaay shaqadooda qabsanaya
adeegii bulshada oo sida toos u helaya haddii laakiin shaksi lagu xiro waa dareemi kartaan haddii laakiin shaksi baa wax walba ka ah meesha waa dareemi kartaan culayska ay leedahay